alxamdu lilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray suuratu haafir tafsiirkeedaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda 69 ee min suurati haafir allah wuxuu yidhi alam tara ila aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi anna yusrafuun alam tara ma og tahay oo cilmigaagu ma ku dhammaaday oo ma gaadhay ila aladiina kuwii yujaadiluuna doodayey fii aayaati illaahi aayadaha ilaahay inay buriyaan ama ay dhaliilaan u doodaayey annaa yusrafuun xaggee loo leexinayaa oo xaqa looga leexinayaa aladiina ay acni waxaan u jeedaa aladiina kadabuu oo acni loo qadaro ama aladiina laga bedelo ama aladiina laga sifeeyo ama aladiina lagu bayaamiyo weji kale waxay tahay waa in la yidhaahdo aladiina mubtada laga dhigayaa fa sawfa yaclamuuna waa laga khabrayaa aladiina kuwii kadabuu beeniyey bilkitaabi kitaabka beeniyey wa bimaa arsalna kii aannu la soo dirnayna beeniyey bihi isaga aannu la soo dirnay maagaas rusulanaa rasuulladayada aannu la soo dirnayna beeniyey oo sharaa'icdii lala soo diray iyo axkaamtii ay koobsanayeen hadday caqaa'id tahay iyo hadday khayrkeed tahayba hadday tawxiid tahay hadday qiyaamo tahay iyo hadday ashyaa kale tahay mid walba fa sawfa yaclamuun wakhti dambay garan doonaan waa tahdiid weeye waa hanjabaad idil akhlaalu waxay garan doonaan idil akhlaalu goorta katiinaduhu fii acnaaqihim qoorahooda ay ku sugan yihiin oo qoorta ay ugu sugan yihiin waasalaasilu silsiladahana yusxabuuna lagu jiidaayo ayay garan doonaan ay yusxabuuna biha raabidkii baa la qadaraya oo damiirka biha ah filxamiimi biyihii kululaa ayaa lagu dhex jiidayaa humma fi nnaari intaa dabadeed naarta gudaheeda yusjaruuna lagu shidayaa humma qiila lahum intaa dabadeed waxaa lagu yidhi aynamaa kuntum xaggay jiraan kuwii ahaydeen tushrikuuna qaar la wadaajiya bihi yacnii ilaahay ugu shariig yeeloo la wadaajiya kuwa ahaydeen ay tushrikuuna allaha bihi min duuni illaah xaal marka aad ka gudbaysaan oo ka tallaabaysaan cibaadada inaa ilaahay ku koobtaan aad la wadaajinayseen xaggay jiraan kuwaasi ma idin anfacaan qaaluu waxay yidhahdaan dalluu cannaa way naga lumeen oo naga qarsoomeen haddana waxay yidhaahdaan bal lam nakun nadcuu min qablu shay'a daa inaannu hadda weynay uune maannu ahayn nadcuu qaar baryaba maannu ahaynoo caabuda min qablu horay qaar u caabuda maannu ahayn shay-an shay wax anfacayaba maannu caabudi jirin waxaannu caabudi jirrayba waxay noqdeen wax la'aan wax jiraba may ahayn waxaannu caabudi jirray kadalika yudilu allahu alkaafiriin ay midla dalika alidlaal lumintaas mid la mida yudilu allahu ilaahay wuxuu luminayaa oo habaabinayaa allahu ilaahay alkaafiriina gaalada ayuu luminayaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kuwa aayadaha ilaahay oo u doodaya si ay u dhaliilaan ama u dhaleeceeyaan ama u beeniyaan ama isaga hor keenaan in xaqii aynay ahayn in xaqii laga leexiyey waxay u doodayaan baatil waxay markaa ka hor imanayaan xaqii caddaabay ka hor imanayaan shubahaad baatil ay wataan shubahaadkii bay doonayaan inay daafacaan aayadihii bay doonayaan inay dhaleeceeyaan oo dhaliilaan oo ay markaa beeniyaan bay rabaan dooddanna waxay isleeyihiin aayadaha ku buriyay isleeyihiin marka cid kastoo ahlulbaatila waxaa la yaqaanaa baatilkooda inay u dooddo ayaa la yaqaanaa marka xaq iyadoo loo sheegay baatilkii u doodayaan oo daafacayaan xaqiina ay doonayaan inay dhaliilaan oo dhaleeceeyaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kuwa kitaabkii beeniyey jinsigii kitaab ee rasuullada lagu soo dejiyey kuwa beeniyey kitaabku doonaba ha noqdo kay beeninayaan waa jinsulkitaab iyo kii rasuullada lala soo diray xaqii rasuullada lala soo dirayna beeniyey way ogaan doonaan waxa ku dhaca waa loo hanjabayaa waxay wax garanayaan marka katiinadaha qoorta loo geliyo silsiladahana lagu jiido oo naarta gudaheeda markaa lagu shido markaasay wax garanayaan laakiin garashada marka ay wax gartaan waxay u taraysaa ma jirto ma anfacayso garasho anfacaysa ma aha
waxallo waxay ka dheefayaan garashadaas ma jirto, ciilkooda iyo cadhadoodunbaa sii weynaanaysa. ilaahay wuxuu inoo sheegaya inay wax garanayaan marka katiinaduhu qoorta ugu jiraan, silsiladahana lagu jiidayo, naarta gudaheedana lagu shidaayo markaa inay wax garanayaan. laakiin garashada marka ay wax gartaan waxay ka anfacaysaa ma jirto, ciilka iyo cadhaduunbay ku kordhinaysa. waxallo waxay u taraysaa ma jirto. qad faata alawaan inay adduunyadii ku gartaan oo ku garwaaqsadaan oo ku rumeeyaan ayaa anfacaysay. rumayntay adduunyada kula yimaadaan ee ay raacaan baa wax taraysa. wuxuu ilaahay inoo sheegayaa in lagu odhanaayo xaggay jiraan waxaa rabbi ugu shariig yeeli jirteen oo la caabudi jirteen. dabeedna waxay dhahan waa naga lumeen, waa naga qarsoomeen oo waa weynay, ma hayno. oo haddii la yidhaahdo say uga qarsoomayaan soota laynoo sheegay naarta inay wada gelayaan. innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum lahaa waariduun. in iyagiyo waxay caabudayeen ilaahay sokadiiba in naarta la wada gelinaayo, naarta lagu shidaayo, xaabada naarta ay noqonayaan, oo naarta xaabadeeda ay noqonayaan. ahlucilmiga qaarkood waxay kaga jawaabeen inay yidhahdeen naartu ha wada galaan, laakiin isku mawdic kuma gelayaan, laba meeloodoo kala duwan baa la kala gelinaya. maadaama markaa qolaba markaa meel la gelinaayo ayay markaa yidhaahdeen dalluu canna. dabeed waa loo keenaa bale, waa la soo xaadiriyaa, waa loo keenaa. dabeedna iyaguna waa ku dafiraan. sayakfuruuna bicibaadatihim wayakuunuuna calayhim didda. waxay ka kufrinayaan oo beeninayaan cibaadaday caabudi jireen, waxayna ku noqonayaan lid bay ku noqonayaan. waxay odhanayaan ba annaga nama caabudi jirin, waxay odhanayaan annaga namay caabudi jirin bay odhanayaan. weliba waxaynu sii tilmaamaynaa kuway naarta wada gelayaan ee ay caabudi jireen waxay noqonayaan ama kuwii ka raallida ahaa in la caabudo, ama qorraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha iyo dhagxanta iyo dhiraha iyo ashyaadaasoo dhan ayay naarta wada gelayaan oo lagu wada shidayaa. laakiin ciddii wanaagsanayd, hadday malaa'ig tahay, hadday nebiye tahay, hadday saalixiin tahay, iyagu naarta lama gelayaan. labada aayadood ee kale lagaga reebay ina aladiina sabaqat lahum mina alxusnaa ulaa'ika canha mubcaduun laa yasmacuuna xasiisaha wahum fiima ishtahat anfusuhum khaaliduun. labada aayadood baa lagaga reebay oo la caddeeyey iyagu markaa naarta inaynay gelayn. ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ashyaaday caabudi jireen baa loo keenaa. marka loo keeno oo ay iyagiina markaa dafiraan oo ay markaa ku beeniyaan oo yidhahaan annaga namay caabudi jirin, ayay markaa waxay yidhahdaan bal lam nakun nadcuu min qablu shay'a. annagun baaba wax moodayna inaannu caabudayne waxba maanu caabudi jirin, ama waxna anfacayo waxna taraya maanu caabudi jirin. sida ilaahay kuwaa u lumiyey ayaa ilaahay markaa gaalada u luminaya, oo adduunyada markay joogaanna xaq iyo iimaanku ka luminaya, aakhire markay joogaanna xujadii baa laga luminaya. allah wuxuu yidhi alam tara ma ogta ila aladiina kuwii yujaadiluuna doodayey fii aayaati illaahi aayadaha ilaahay inay dhaliilaan ama beeniyaan, ama ay ka hor yimaadaan, ama ay dhaleeceeyaan u doodaay. annaa yusrafuun, xaggee loo leexinayaa oo xaqa looga weecinayaa. tawxiidkii oo deliilkiisa cad yahay, qiyaamadii oo markaa deliilkeedu cad yahay, rasuulkii oo rasuulnimadiisii cad ahay, aayaadka xaqnimadoodii oo cad, xaggee looga weecinayaa. aladiina kadabuu bilkitaabi, aladiina kuwii kadabuu beeniyey bilkitaabi, jinsiga kitaab beeniyey oo kutubihii nebiyada lagu soo rogay oo dhan ku rumoobaya. wa bimaa arsalnaa, kii aanu soo dirnayna beeniyey, bihi isaga aanu la soo dirnay maagaas, rusulanaa rasuulladayada aanu la soo dirnay. waa xaqii rasuullada lala soo diray oo tawxiidkii iyo iimaankii iyo bacsigii iyo sharaa'icdii oo dhanba. dhammaan wixii rasuullada lala soo diray in la wada rumeeyaa waajiba, sida xadiiskii saxiixaba ku soo aroortay wa yu'minuu bii wa bimaa ji'tu bihi, ilaa anigana ay rumeeyaan waxaan la imi oo dhanna ay rumeeyaan. fa sawfa yaclamuun, wakhti dambay garan doonaan, ardambay garan doonaan, waxay garan doonaan idil aghlaalu fii acnaaqihim. bacdu ahlicilmi waxay qadarayaan udkur, yacni markaa sheeg ayay markaa noqonaysaa, iyaga u sheeg idil aghlaalu fii acnaaqihim, yacni taa uga warran. marka waxay noqonaysaa iddu markaa darfiye noqon mayse udkur haddii la qadaro
waxay noqonaysaa in mafcuulu bihi ay tahay ila looma jeedo xilligan gudaheeda u sheegeen wejiga kale waxay tahay waa in laha yaclamuuna ayaa ku camal falays fasawfa yaclamuuna wakhti dambay garan doonaan id ilaghlaalu id waxaa loo isticmaalaa maadiyo wax tegey baa loo isticmaalaa marka idda waxaa loo jeedaa bay yidhahdeen culammada qaarkood bimacnaa idaa baa loo jeedaa oo iddu bimacnaa idaa bay u dhacays culamada qaarna waxay yidhaahdeen in sideeda loo daayo dhibi kuma sugna waayo akhbaarta qiyaamada iyadoo mustaqbali ay taho wax soo socdo tahay baa sidii maadi oo kale laynoogu sheegaa wa nufikha fi suur iyo ataa amrullah wa jaa'a rabbuka waalmalaku safan safa yacni marka waxa rabbigaa baa yimi amarkii ilaahay baa yimi ataa amrullah amarkii ilaahay baa yimi wa nufikha fi suur suurkaa la afuufay waxaa loo jeedaa inta mid walba inay dhici doontaa loo jeedaa laakiin maadi waxaa loogu cabbiraa akhbaarta qiyaamada iyadoo ay tahay wax soo socdo weli aan dhicin maadaama khabaruu ilaahay ka warramay yahay waa muxaqaqulwuquuco inuu dhacaya waa xaqiiqo waa dhab marka waxa weeye sida loo hubo inuu dhacaya waxay ka dhigan tahay kaannahu inuu dhacay fasawfa yaclamuuna wakhti dambey ogaan doonaan id ilaghlaalu wakhtiga katiinaduhu fii acnaaqihim qoorahooda ay ku sugan yihiin oo qoorta ugu sugan yihiin markaasay ogaan doonaan alaghlaal waa jamcu gullin gullina waxaa la yidhaahdaa wixii gacanta iyo qoorta la ysugu xidho ayaa la yidhahdaa wasalaasilu silsiladuhuna ay fii arjulihim lugahooda ay ku sugan yihiin culammada qaar waxay khabarka ka dhigeen assalaasil khabarkeeda waxay ka dhigeen fii arjulihim oo waxa qariine u ah bay yidhaahdeen fii acnaaqihim maadaama marka waxa weeye laynoo sheegay id ilaghlaalu fii acnaaqihim silsiladuhu xaggay ku sugnaanayaan ma qoorta mise meel kale ma iyaguna addimaday ku sugnaanayaan bay yidhahdeen fii arjulihim marka ta hore ayaa qariino uhoo daalli u ah qowl labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maya silsiladaha laftooduna qoorahay ku sugnaanays waxay ka dhigan tahay id ilaghlaalu waasalaasilu fii acnaaqihim labaduba goortay ku sugan yihiin hadday silsiladaha tahay iyo hadday markaa katiinadaha tahay mid walba ay ku sugan yihiin qooraha ay ku sugan yihiin yacni qoortooda ay ku sugan yihiin wejiga saddexaad wuxuu yahay in la yahay wasalaasil waxaa lagaga khabrayaa yusxabuuna wejigaasaana sii fiican oo inaan fii arjulihim iyo waxba la qadarayn ayaa markaa sii fiican wasalaasilu silsiladahana wakhtiga yusxabuuna id ilaghlaalu fii acnaaqihim waxay garan doonaan goorta katiinaduhu fii acnaaqihim qoortooda ay ku sugan yihiin oo gacmaha iyo qoorta isku xidhayaan wasalaasilu silsiladahana yusxabuuna lagu jiidaayo ay bihaa silsiladaha lagu jiidayo jumlada yusxabuuna ee khabar ka dhacday salaasil oo mubtadihii ah raabit ku xidhay u baahan tahay raabidkii muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa muqadar buu noqonayaa bihaa baa la qadarayaa yusxabuuna waa la jiidayaa bihaa silsiladaha lagu jiidayaa filxamiimi biyo kulul gudahood baa lagu jiidayaa humma fi nnaari intaa dabadeedna naarta gudaheeduunbaa yusjaruuna lagu shidayaa oo lagu horinayaa humma qiila lahum intaa dabadeed waxaa lagu yidhi ayna xaggay jiraan maa kuntum kuwa ahaydeen tushrikuuna qaar la wadaajiya kuwa ahaydeen xaggay jiraan ay tushrikuunahum min duuni illaahi xaalaa ka gudbaysaan ay mutajaawisiina qasra alcibaadati cala allah xaalaa ka tallaabaysaan oo ka gudbaysaan cibaadada inaa ilaahay ku koobtaan aa la wadaajinayseen xaggay jiraan maye qaaluu waxay yidhahdeen duluu cannaa waa naga lumeen oo waa naga qarsoomeen bal lam nakun nadcu min qablu shay'a daa'in markaa hadda ay naga lumeene maannu ahayn nadcuu qaar caabuda min qablu horay qaar u caabudo maannu ahayn shay-an waxbaba qaar caabudo maannu ahayn oo shay ilaahay ka soo hadhaannu caabudi jirrayba ma jirto culammada qaar waxay u dhigeen inay leeyihiin waxaa noo caddaatay inaanaan waxba caabudi jirin oo waxaannu caabudi jiray inay wax la'aan ahayd oo waxna anfacayaba maannu caabudi jirin culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxay noqonaysaa inay u jeedaan dafiraaday dafirayaan shirkigii summa lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin intaa dabadeed may noqon xujadoodu inay yidhaahdaan mooyaane ilaahay baannu ku dhaarannay mushrikiinba maannu ahayn humma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin laakiin labada weji waxa fiican wejiga hore waayo wakhtiga dafiraadday isku dayayaan waa inta aynay naarta gelin ee bannaanka qiyaamada joogaan
laakiin markay naarta galeen dabadeed oo wax waliba ay ku oogmeen oo xujadii si walba ugu sugnaatay oo cid waliba ay ku markhaati kacday oo markay is yidhahdeen wax walba eeseeyo markhaatiyada dhammaanteeda feeya ay sidaa is yidhaahdeen xataa jidhkoodii ku markhaati kaceen marka dambe dabeed way iska qiranayaan. marka xaalka caynkaas ah inay dib markaa ka dafirayaan iyagoo naartii ku jiraa wejigaasi daahir ma aha ee waxaa markaa looga jeedaa wax markaa na anfacayaba maanu caabudi jirin wax la'aan buu ahaa waxaanu caabudi jiray. kadalika yudilu allahu alkaafiriin ay midla dalika alidlaal lumintaas mid la mida yudilu allahu ilaahay waa luminaya waa habaabinaya alkaafiriina gaalada ayuu luminaya. nacuudu billahi min aldalaali walidlaal. dalikum bima kuntum tafraxuuna fi lardi bigayri alxaq ay yuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa qowl baa la qadaraya. dalikum kii naasu cadaabka ahi bimaa kuntum wuxuu ku dhacay bikownikum ahaanshiinna ahaydeen tafraxuuna qaar farxa fil ardi arlada gudaheeda qaar ku farxa bigayrilxaqi xaqdarro qaar ku farxa ahaydeen aawadeed buu ku dhacay. waxaa loo jeedaa faraxa batar farax kibirkibirah iyo farax baatil lagu farxayo lagu reeraynayo ayaa loo jeedaa. wa bimaa kuntum ay wa bikownikum iyo ahaanshiinna ahaydeen tamraxuuna qaar kibra oo arlada gudaheeda ku cantara oo isku qaadqaada. maraxuna waxa weeye waa kibirka iyo isqaadqaadka weeye. walaa tamshi fi lardi maraxa. waxay culammada qaar ku fasireen tamraxuun ay tatawasacuuna qaar markaa ku ballaarsada ahaydeen yacni faraxo aad iyo aad markaa faraxa u farabadsada. ama tatawasacuuna fi ladaat waxaa farabadsan jirteen oo ku ballaarhsan jirteen waxyaalaha markaa waxaa lagu raaxaysto ayaa aad iyo aad markaa si markaa fara badan a u isticmaali jirteen. culamada qaar baa yidhi waa ashaddu alfarax. calaa kulli xaal waxaa loo jeedaa tamraxuuna waa kibrayseen waa isqaadqaadayseen baa loo jeedaa. udkhuluu abwaaba jahannam waa fii xayizi alqowl maquul qowlkiiba iyaduna ka mid tahay. waxaa kaloo lagu yidhaahdaa udkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama albaabadeeda gala. waxaa jahannama albaabadeeda gashaan khaalidiina fiiha ay muqadariina alkhuluuda fiiha xaal laydiin qadaray inaad ku waartaan jahannamo gudaheeda aa ku waartaan laydiin qadaray jahannamo gala. fa bi'sa waa xumaatay mathwa almutakabbiriin hoyga kuwa kibray bay u xumaatay hiya jahannami. fasbir ina wacda allaahi xaq fasbir sabir ina wacda allaahi ballanqaadka ilaahay xaqun dhab weeyo waa xaq. faimaa nuriyannaka haddii aanu ku tusinno bacda aladii kii wax ka mida naciduhum aan ugu ballanqaadnay haddaannu ku tusinno ay fadaaka maa tarjuu kaasi waa waxaad rajaynaysa. ama fadaaka amaluk kaasi waa shaygaad yididiloonaysay. aw natawafayannaka ama haddaannu ku oofsannoo ku dilno oo aad geeriyooto iyadoo aanaan weli ku tusinnin cadaabka gaala ku dhacay iyo jabka ku dhacay aanaan ku tusin. fa ilaynaa yurjacuun xaggayagaa loo soo celinayaa oo annaga abaal marinaynaa macnuhu u dhacayaa oo kollayba cadaabkii aakhira u dambeeyo ku dhacaya. ilaahay wuxuu inoo sheegayaa gaaladii in lagu odhanayo loogu jawaabayo cadaabkaas iyo dullayntaas iyo dhibaatadaasi waxay idinku dhacday baatilka iyo xumaanta faraxa ku farxayseen ee ku kibrayseen iyo kibirkiiyo isla weynidii a ku sugnaydeen ee xaqa ku diidayseen taasaa idinku wacan. faraxu wuxuu u qaybsamaa farax wanaagsan iyo farax xun. faraxa wanaagsani waa in lagu farxo yacni khayrka iyo diinta iyo hidaayada iyo hanuunka in lagu farxo wey. qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu. fadliga ilaah iyo naxariistiisuna ha ku farxaan. fadliga ilaah iyo naxariistiisa macaani isku dhow bay culammadu sheegeen. in la yidhahdo qur'aankaa looga jeedaa, in looga yidhahdo hidaayadaa looga jeedaa, in la yidhahdo cilmiga markaa in loo aqoon yeeshaa looga jeedaa, in la yidhahdo risaalada nebiga la soo diray baa looga jeedaa, in la yidhahdo islaamnimadaa loo jeedaa. calaa kulli xaal waa macaani isku dhow. intuba waxay soo gelayaan fadliga ilaah iyo naxariistiisay soo gelayaan. marka xaqii oo lagu farxaayo faraxa shukrin farax lagu shukri naqayo noocaasay noqonaysa. faraxa baatilka lagu farxayo ama adduunyada lagu farxayo farax la kibraayo la isqaadqaadayo tan noocaasi waa mid markaa madmuuma xun wey. sidaas aawadeed buu ilaahay wuxuu inoo sheegay qaaruun in lagu yidhi yacni faraxa iska dah. id qaala lahu qawmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin. waxay ku yidhahdeen qowmkiisii ha farxin
faraxan kibirkaa iska jir waayo ilaahay farixiinta ma jecla kuwa faraxa kibirkaa farxa ama adduunye ku farxa ilaahay markaa kuwaa ma jecla faraxa kibirkaa cidda faraxda ilaahay ma jecla marka shay baatilana in laguba farxa ma aha marka baatil in lagu farxo ma aha faraxa baatilka lagu farxayana dee kibriya isla weyni baa ka dhalanaysa laakiin faraxa markaa xaqa lagu farxayo oo markaa fadliga ilaahay la qiraayo oo rabbi loo shukri naqaayo waa faraxa shukrin waa farax wanaagsan kaas saas aawadeed faraxa markii la sheegayo maxaa lagu qayday tafraxuuna fi lardi bigayri alxaq ilaahay wuxuu ku yidhahdaa naarta gala udkhuluu abwaaba jahannama khaalidiina fiiha albaabada jahannamo gala xaal laydin qadaray inaad ku waaraysaan jahannamo gudaheeda aad ku waaraysaan damiirka fiiha wuxuu noqonayaa jahannamo u noqonaya damiirka fiiha ku sugan jahannamo ayuu u noqonayaa jahannamo u noqonayaa abwaabta u noqon maayo waa mawaadicdii damiirtu u noqonaysay mudaafu ilayhiga loo celinayay waa min hayri khaalib waana la garanayaa meesha lagu waarinaya albaabada inay ahayne jahannamo gudaheeda inay tahay tabaqaadka jahannamana la gelinayo saa waa la garanaya xaaladanna waa xaala muqadara waayo gelinta la gelinayo iyo waarista la waarinayaa isla wakhti ma aha way kala dambaysaa waaristu waxa weeye waa inay kaba bixi waayaan abad alaabaad saas aawadee waxay noqonaysaa xaala muqadara yacni muqaarina ma aho dukhuulka iyo waaritaanku isla mar dhici maayaan oo cid kastoo meel gasha miyay ku waartaa gelis iyo waaritaanku waa kala dambeeyaanoo marka la gala dabadeed baa waaritaan iman karaa marka gelitaan meel la gala ay dhacdana in waaritaan raaca iyo inaanu raacin mid walba waa dhacdaa sidaas aawadeed xaalkani wuxuu noqonayaa khuluudka ahi mid ka dambeeya gelitaanka mid ka dambaysa idan waxay noqonaysaa muqadar ay muqadariina alkhuluuda fiiha baa loo laqbaynaya gaaladu inay naarta gelayaan naartana ku waarayaan nusuustiiyo adiladu waa sheegaysaa waana markaa laynoo caddeeyey aayaadka qur'aankuna waa ku soo arooreen oo allah wuxuu yidhi ina aladiina kafaruu wadalamuu lam yakun illaahu liyagfira lahum walaa liyahdiyahum طariiqa ila طariiqa jahannama khaalidiina fiiha abada khuluudkii waxaa lagu qayday abad baa lagu qayday oo inay weligood ku waarayaan waa khuluud abadi ah waxaa la mida aayadda kale allah uu yidhi ina allaha lacana alkaafiriina wa acadda lahum saciira khaalidiina fiiha abada waxaa la mida aayadda kale suuratuljinni ku sugan ee allah markaa uu ku sheegay khuluudka abad uu ku qayday waxaa la mida aayadda kale suuratuljinni ku sugan ee iyaduna khuluudka abadka ku qaydaysa oo allah wuxuu yidhi waman yacsi allaha warasuulahu faina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada saddexdaa meelood oo qur'aanka ka mida saddexdaba naarta waxaa laynoo sheegay inay weligood ku waarayaan khaalidiina fiiha abada waa khuluudkii abad lagu qayday waa suuratu nisaa aakhirkeeda iyo suuratu laxzaab aakhirkeeda iyo suuratuljinni mawaadic kale waa soo aroorto khaalidiina fiiha sida halkan baa igu sugan tahay ama mawaadic kaloo badan baa igu sugan tahay laakiin khuluudka naartoo lagu qaydaayo abad lagu qaydayo abadan la raacinayo saddexdaa mawdic keliya qur'aanka kaga soo aroorta waaritaankii naarta in abad lagu qaydo oo abadan la raaciyo saddexdaa mawdic keliyay qur'aanka kaga timi laakiin waaritaanka jannada lagu waarayo in abad lagu qaydana 8 mawdic bay ku timi waatuu calaamuddiin asakhaawi odhanayo wa abadan min bacdi khaalidiina fiiha b11 yaqiina abadan oo khaalidiina ka dambaysaa 11 mawdic bay yaqiin ahaan qur'aanka ugu timi waa 8 jannada ah iyo 3 naarta ah saas aawadee ahlusunnati waljamaaca waxay qabaan jannada iyo naarta labaduba waa abadi weligood waa jirayaan weligoodna ma baaba'ayaan naartu ma baaba'ayso ictiqaadka ahlusunnati waljamaaca waxay tahay jannada iyo naarta midna inay baaba'ayn qowl khalata ayaa wuxuu odhanayaa naartu waa baaba'aysaa oo ina raxmatii sabaqat ghadabii marka wakhtigay ku jirayaan haba fara badnaatee marka dambe waxay ku dambaynaysaa inay markaa haawato naartu laakiin qowlka noocaasi waa qowl marka aan sax ahayn oo baatil ah oo ka hor imanaya nusuusta qur'aanka iyo sunnada khilaafsanna ijmaacu ahlisunnati waljamaaca ahlusunna waljamaaca waxay qabaan khuluudka jannada iyo naarta mid weliba waa abadi oo gaaladuna abad alaabaad naarta waa ku waarays naartuna ma baaba'ayso ma bakhtiyayso ma gamaarayso dadka ku jirana laga saari maayo kullamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha markastay doonaan naarta inay ka baxaan waa lagu celinayaa xilliyada ka midoo la daynayo
inay ka baxaan loo oggolaanaya ma jiro. kullamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha wa qiila lahum duuquu cadaaba annaari aladii kuntum bihi tukadibuun. marka mar laga saarayaa ma jiro, mar ay ka baxayaanna ma jiro. kullamaa khabat zidnaahum saciira, mar kastay gamaarto. aayad kale allah wuxuu yidhi kullamaa araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha waduuquu cadaaba alxariiq. maray gamaaraysaana ma jirto. kullamaa khabat zidnaahum saciira, mar kastay waxa weeye gamaarto olol baan u kordhinaynaa buu ilaahay yidhi. khuluudkiina allah wuxuu inoo caddeeyey inuu yahay khuluud abadi ah, khaalidiina fiiha abada. saas aawadeed ha ku kadsoomin haddii markaa aad aragto meelaha qaarkood iyadoo lagu sheegaayo aahaar baa la soo wariyey, saxaabada laga soo wariyey oo tilmaamaysaa naartu mar haawan doontaa intay doonto baa jirtay. cadadka ciidda kulay ahaato intay jirtaa zaman ahaan kollayba maray haawanayso aan wax ku jiraynin waa jiri doontaa. aahaarta noocaasa waxba kama asixin, waxba kama sugnaa. bacdu ahlicilmi ishkaal waxa geliyey aahaartaas saxaabada laga sheegayo, laakiin aahaartaasi ma sugna. waxaynay culammada qaarkood yidhaaheen fardan wa taqdiiran haddayba sugnaan lahayd waxaa lagu xambaari lahaa dabaqadda naartee loogu tala galay ahlulkabaa'irka muslimiinta ah lagu cadaabayo, taas weeye ta haawanaysaa. laakiin naartii gaalada loogu tala galay ma haawanayso, sidii bay naartaa gaaladu ugu jirayaan uguna waarayaan. laakiin ciddii ahlulkabaa'ir ahayd ee dembiye waaweyn la timiyo tawxiid ku dhimatay, iyaga naarta waa laga bixin doonaa, jannay ku dambayn doonaan, janno ayay ku dambayn doonaan. marka ictiqaadka ahlusunna waljamaca siduu yahay waa in la ictiqaadiya la raacaa. sheikh baa laga soo naqliyey inuu yidhi inta masalada la weydiiyey naartu ma baaba'aysaa ama ma haawanaysaa, uu yidhi markaa ila al'aan anigu waxa weeye qowl kama dooran masalada. ila al'aan ma khtartu qawlan, ya bimacnaa mutawaqif baan ka ahay. arrinka noocaasi waa khalad. saxdu waxay tahay inaan laga tawaqufin ee sida nusuustu sheegaysa la yidhaahdo. waayo cibaarada ka sariixsani maxay tahay khaalidiina fiiha abada. maxaa ka cad khaalidiina fiiha abada, weligood bay ku waarayaan. inaanay baaba'ayna laynoo sheegay. kullamaa khabat zidnaahum saciira, inaan laga saarayna laynoo sheegay. markaa saas aawadeed sida saxdii waxay tahay waa in si jaazima loo ictiqaadiyo loo rumeeyo jannada iyo naarta mid walba abadi inay tahay, midna inaynay baaba'ayn. waxay ka mid tahay ashyaada awalka leh ee aan aakhirka lahayna weligood aan baaba'ayn. suyuudi laba bayd buu wuxuu ku kulmiyey 8 shay oo markaa aan bardhammaad lahayn. 8 xukmu lbaqaa'i yacummuha min alkhalqi waalbaaquuna fi xayizi alcadam hiya alcarshu waalkursiyu wanaarun wajannatun wacajbun waarwaaxun kada allawxu waalqalam. waa 8 shay. 8 shay baa xukmiga baqaagu u cammimaya. 8 shay oo makhluuqaadka ka mid a. makhluuqaadka wixii ka soo hadhayna waxay noqonayaan wax baaba'aya. waxay culammada qaar kaga daba tageen oo ku istidraakeen ajsaad alambiyaa, oo jirarka nebiyaduna ma baaba'ayaan. waxay ka mid yihiin ashyaada awalka leh aan aakhirka lahayn ee weligood jiraya. ina allaha xarama cala alardi an ta'kula ajsaad alambiyaa hiya alcarshu waalkursiyu wanaarun wajannatun wacajbun waarwaaxun kada allawxu waalqalam. cajbigu cajba danab. carshiga ilaahay weligii waa baaqi noqonaya. kursigu saasi la eg. naarta iyo jannada weligood waa jirayaan. waa cajbun cajbu danab. lafaha dhabarta lafta ugu hoosaysa ee lafturuqda la yidhaahdo dhuuxeeda hoose in ka mida ayaa waxa la yahay cajbu danab. intaasi weligeed ma baaba'do, sida xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam sheegay. arwaaxda nafuhuna ma baaba'aan. qofku markuu dhanayo ruuxdaa baaba'aysa maaha. ruuxdu waa jiraysaa, ima munacama wa ima mucadaba. ruuxdii ama waa loo nicmaynaya ama waa la cadaabaya, laakiin ruuxdu ma baaba'ayso. qofku markuu dhimanayo yacni naftiya waxaa la kala saarayaa jidhkii, laakiin naftii baa baaba'aysa ma aha. naftu waxay ka mid tahay ashyaada abadiga ee weligeed jiraysa. naftu waxay ka mid tahay ashyaada abadiga ah ee weligeed jiraysay ka mid tahay. kada allawxu waalqalam. looxa iyo qalinkuna weligoodba waa baaqi noqonayaan. waa qalinkii lagu qoray lawxulmaxfuudka. marka jannada iyo naarta mid walba waxa weeye waa abadi, weligoodna waa jirayaan, mana baaba'ayaan. waana sida nusuustii adiladu sheegayso, waa sida ahlu sunnuhuna qabaan weeye. ilaahay wuxuu inoo sheegay fabi'sa mathwa almutakabiriin. hoyga kuwa kibray ayaa xumaaday oo jahannama u xumaatay. hoyga kuwa kibray u xumaatay jahannami. waxaa laga qaadanaya kibirku inuu xun yahay. waxa ku xambaaray inay iimaanka diidaan, rasuullada ay raaci waayaan. waxay ahayd kibir. an nu'minu libasharayni milina abasharan mina waaxidan nattabicuh. rasuulladii inay rumeeyaan oo raacaan waxa u diiday waxay ahayd kibir. mana cid dabagala, mana bashar raaca,
kibir baa u diiday. waxay ku tusinaysaa kibirku inuu xun yahay maadaama ay dhici karto ruuxii inuu u sababoba gaalnimo oo uu kibirka aawadii u gaaloobo. ibliis ba maxaa gaalnimada u sababay? kibir baa u sababay. ila ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin. kibirku waa maxay? kibir waxaa la yidhaahdaa waa bataru lxaqi wa gamdu nnaas. waa xaqa markaa waxaa in la diido, dadkana in la yasoo la xaqiro ayaa waxa la yidhaha kibir. culamada qaarkood waxay yidhahdeen dembigii ugu horreeyey ilaahay lagu caasiyey wuxuu ahaa kibir, oo ibliis baa ku caasiyey. wa awalu demb fabi'sa mathwa almutakabbiriin. madkhal lama odhan, mathwa baa la yidhi. yacni meeshay gelayaan baa xumaatay lama odhan. ila udkhulu ba aayadda lagu bilaabee. waayo gelistu ilaaba ilaa mar walba ma keensato waaritaan iyo daa'imitaan. shay in la galo kama dhalato ilaaba ilaa in lagu waaro. marka waxaa laga cabbiray mathwa waa min athawaa, waa sugnaanshaha iyo daa'imitaanka. meelay galaan oo ku daa'imaan waxa ugu xun kuwa kibray, jahannamo ugu xun. marka kibirka in layska jiraa laga qaadanaya. waatii xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ku soo aroortay inuu yidhi laa yadkhulu jannata man kaana fii qalbihi mithqaalu darrati min kibr. jannada ma gelaayo ka qalbigiisa ay ku sugan tahay qudhaanjo ila miisaan oo kibiri janno geli maayo. marka ruuxu kibirka waa inu iska jiraa. kayfa yatakabbaru man awaluhu nutfatun madirah wa aakhiruhu jiifatun qadirah wa huwa bayna dalika xaamilu cadirah. ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen siduu u kibrayaa mid awalkiisii hore ahaaday biyo yar oo laga yakyaksoonayo. waa biyo yar oo xun, waa la dhibsanaya. biyaha laga abuuray waa biyo la dhibsanayo weeye oo laga yakyaksoonayo. marka awalkiisii biyaha laga yakyaksoonayo ahaaday siduu u kibrayaa. aakhirku ku dambaynayana noqonaya jiifatun qadirah, yacni bakhti markaa waxa uraya. ruux kastoo sharaf lahaayoo wanaagsanaa dee waxa weeye markaa layskama daysan karo, guriga layskama dhigan karo. markuu dhinto guriga looma dayn karo, waxaa laga baqayaa inuu ku uro. waxaana layna amray degdeg in loo aaso. wa huwa bayna daalika xaamilu cadirah, labadaa dhexdoodana wuxuu sidaa saxaruu xambaarsan yahay. ya oo maxaa markaa waxaa yani midhiciradiisa iyo malawadkiisa maxaa fadhiya? dee saxaraa ku jirta, saxariya kaadii buu xambaarsan yahay. marka siduu u kibraya? allah wuxuu amrayaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam sabir ku amraya. fasbir ina wacda allahi xaq. yani gaaladii waa beeninayaan, waa dhibaataynayaan, way masabidayaan. maray falallow ku sheegaan, maray yidhahaan waa waalan yahay, maray yidhahaan waa beenawaas, maray yidhahdaan waa gabyaa, maray yidhahaan waa sixiroole. yani waxa weye waa masabidayaan. marka dhibaatooyin baa kaga imanaya, af iyo gacan mid walba leh ayuu gaaladii kala kulmaya. marka ilaahay wuxuu amrayaa sabirka. iyaga cadaabka la cadaabayana dee haddii aanu ku cadaabno inta adduunyada aad ku nooshahay, aanu ku tusinno cadaabkii aanu u ballanqaadnay, iyo haddaannu ku oofsanno nafta kaa qabanno intaanaan ku tusinin ka hor, marlayba xagga ilaahay baa loo celinayaayo cadaabkii aakhira u dambeeya marlayba, haddii iyo haddiiba kollayba aakhira lagu cadaabaya. haddii adduunyada lagu cadaabana cadaabkii aakhira laga baajin maayo o laga dayn maayo. haddii kalena ilaaba ilaa cadaabkii aakhira waa u dambeeyaa. marka cadaab ka bixi maayaan, ee cadaabkoodii iyo ciqaabtoodii way la kulmi doonaan. sidaasaa nebiga sala allahu aleyh wasalam loogu sii bushaareeyo loo sheegay. allah wuxuu yidhi daalikum bima kuntum, ay yuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa daalikum kii naasi oo cadaabka ahi. bima kuntum ay bikownikum, maad waa masderiyo. ahaanshiinna ahaateen aawadeed bay ku dhacday, ba'd waa saabiya. cadaabkaasi wuxuu idinku haleelay sababtii ahaanshaha ahaydeen daraaddeed buu idinku haleelay. tafraxuuna qaar farxa fil ard, arlada gudaheeda ku farxa, bigayri alxaqi ay faraxan, farax farxa, faraxaasoo multabisan bigayri alxaqi, xaqdarro ku dheehan farxa. waa farax kibir ah. ama bigayrilxaqi waxaan xaq ahayn qaar ku farxa a ahaydeen, oo baatilka iyo gaalnimada iyo xumaantaa ku sugantihiin qaar ku reereeyo ku farxa ahaanshaha ahaydeen aawadeed baa cadaabkaasi idinku haleelay. wa bima kuntum ay wa bikownikum ahaanshiinna ahaydeen aawadeed buu idinku haleelay. tamraxuuna qaar kibro isqaadqaada a ahaydeen. udkhuluu abwaaba jahannam, waxaa lagu yidhahdaa udkhuluu gala abwaaba jahannama, jahannamo albaabadeeda gala. yacni jahannamo albaabada ka gala, waxaa gashaan khaalidiina xaal laydin qadaray inaa ku waartaan, ay muqadariina alkhuluuda, inaa ku waartaan xaal laydin qadaray, fiihaa jahannamo gudaheeda inaa ku waartaan laydin qadaray. gala albaabada jahannama.
fabi'sa mathwa almutakabbiriin fabi'sa waa xumaaday mathwa almutakabbiriin kuwa kibray hooygoodu u xumaaday hiya jahannami fasbir sabir oo adkayso ina wacda allaahi ballanqaadka ilaahay xaqun xaq weeyi waa dhab been ma aha mana baaqanayo ilaahayna ma baajinayo mana guub yeelaayo fa imaa nuriyannaka haddii aanu ku tusinno bacda aladii kii wax ka mida naciduhum aanu ugu ballanqaadnay iyaahu wacada waxay ka mid tahay ficilada labada mafcuul toos u qaata ama mafcuulka labaad xarafka ku gaadha marka naciduhum bihi in la qadaro waxa ka fiican maadaama wejiga kaleba u bannaan yahay caa'id mansuuba in la qadaro naciduhum aan u ballanqaadnay iyaahu ka aan u ballanqaadnay waa caa'idkii cadaab ka aan ugu ballanqaadnay iyaahu waxay noqonaysaa alladigay noqonaysa aw natawafayannaka amaanu ku oofsanno culamada qaarkood waxay yidhaahdeen labada sharti ee laysku cadfay waa nuriyannaka iyo natawafayannaka midba jawaab baa loo yeelayaa oo ka hore waa in jawaab loo qadaraa ahlucilmiga qaarkood waxay qadareen fadaaka ay fadaaka amaluk ama ghaayatu amalik ama maa tarjuuh waa waxaad rajaynaysay ama waa sidaad yididilonaysay waasaad jeclayd ama fadaaka maa taqaru bihi caynuk taasi waa waxa indhahaagu ku farxayaan oo ku qabowsanayaan culamada qaarkoodna waxay waxba taqdiir looma baahno waxaa laga tilmaamayaa hadday saasi dhacdo iyo haddii aynay dhicin ee ka hor lagu oofsadaba mar layba xagga ilaahay baa loo celinayaa oo ciqaabkii aakhira mar layba u dambeeya maaha ciqaabka aakhiro inay ka baaqanayaan labada sharti mid walba jawaab waa u noqonaysa saas aawadeed baahi looma qabo taqdiirka waxba la qadarayo fa imaa nuriyannaka haddii aanu ku tusinno oo aanu ku tusinno bacda aladii kii wax ka mida naciduhum aanu u ballanqaadnay iyaahu kaas aan u ballanqaadnay alladiga isaga aan u ballanqaadnay oo cadaabkii aan u ballanqaadnay adduunyada haddii loo soo dedejiyo oo dulligii iyo cadaabkii iyo jabkiiba adduunyada uu ku dhaco aad aragto oo aanu ku tusinno aw natawafayannaka ama aanu ku oofsanno nafta kaa qabanno iyadoo weli aanaan ku tusinin mar layba fa ilaynaa yurjacuun xagga iyagoo keliya loo soo celinaya oo annagaa abaal marinayna markaasaana la ciqaabaya ifka lagu ciqaabiya ama laguma ciqaabina mar layba ciqaabkii aakhira waa u dambeeya haddii iyo haddiiba aakhira lagu ciqaabi doonaabaa macnuhu dhacaya walaqad arsalnaa rusulan min qablik ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqe waa soo dirnay rusulan rasuullaannu soo dirnay min qablika adiga hortaa baannu soo dirnay ama rusulan rasuulladaasoo min qablika adiga hortaa ahaaday min qablika in sifa laga dhigo iyo in arsalnaa lagu tacalluqsiiyo labada weji waa sheegeen culammadu minhum man qasasnaa calayk waxaa bannaan inaad sifa ka dhigto waxaa kaloo bannaan jumlo cusub inaad ka dhigto rasuulladaasoo minhum ay ka mid ahaadeen man qasasnaa calayk midaannu kaaga qisoonnoo kaaga warrannay ama minhum rasuullada waxa ka mida waa jumlo cusub minhum rasuullada waxaa ka mid a man mid baa ka mid a qasasnaa calayka aanu kaaga qisoonnoo kaaga warrannay wa minhum waxaa ka mida man lam naqsus calayk midaanaan kaaga qisoonoo kaaga warramin baa ka mid a wamaa kaana lirasuulin uma suuragal ah rasuul an ya'tiya biaayatin inuu la yimaado aayad xaal axwaasha ka mida ilaa biidni illaah xaaluu idanka ilaahay iyo oggolaanshaha ilaahay ku lamaan yahay mooye xaal kale inuu aayad la yimaadaa calaamad mucjize ah inuu la yimaadaa uma suuragal aha faidaa jaa'a markuu yimaado amrullaahi ilaahay amarkiisu qudiya bilxaqi xaq baa lagu kala xukumaa khasira waxa khasaarahoodii caddaaday hunaalika goobtaas waxaa ku khasaarahoodu ku caddaaday almubtiluuna kuwii baatilka u saaxiibka ahaa ee siday baatilka ugu sugnaayeen sidaa ku soo dhintay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu rasuullo badan soo diray ayuu inoo sheegayaa rasuullada uu ilaahay soo dirayna sida axaadiista saxiixa ku soo aroortay waa 310 rasuul bay ahaayeen xadiiska sidaa ku soo aroorayna waa xadiis saxiixa weeye ahlucilmi badanna ay saxiixiyeen oo mutaqadimiin iyo muta'akhiriin mid walba leh nebiyadu se rasuullada waa ka badan yihiin oo rasuul kastaa nebina waa yahay laakiin nebi kastaa rasuul ma aha ee rasuulladu waa qayb ka mid ah nebiyada ka mid a nebiyadu se waa ka fara badan yihiin tirada nebiyada culammada qaarkood waxay yidhahdeen 124,000 oo nebi bay ahaayeen xadiis baana sidaa lagu soo wariyey ibnu xibbaan uu soo warinayo jalaalaynku halkan wuxuu qorayaa xadiis sheegaya
in nebiyada caddadkoodu ay ahaayeen 8,000 oo nebi inay ahaayeen. markaa 8,000 ee nebi 4,000 inay reer banu israa'iil ahaayeen, 4,000 ay ummadaha inta kale ay ahaayeen. laakiin xadiiska caynkaasi ma sugna, waa daciifun jiddan. waxaa ku jira marka waxa weeye nin markaa dacfigiisu aad u daran yahay baa ku sugan sanadka xadiiska. saas aawadeed xadiiska caynkaasi waa daciifun jiddan, ama waaba mawduuc. saas aawadeed xadiiskaa waxba lagu dhisi maayo. sheikhuna ma fiicnin xadiiskaa inuu qoro. xadiiskan kale ibnu xibbaan culammada qaarkood waa quweeyeen, oo ibnu xibbaan waa saxiixinayaa. sheekh albaanina kitaabkiisa silsilatu axaadiisi saxiixa, sheekh albaani wuxuu ku tegayaa 124,000 oo nebi inay ahaayeen. in duruqda xadiiskaasi ay isquweynayso, sidaas aawoodee xadiiskaasina inuu sugan yahay ayuu ku tegayaa. silsilatu axaadiisi saxiixaanu ku sheegaya. ahlucilmiga qaarkood uma qaadan xadiiskaasi inuu sugan yahay. sidaas aawadeed waxay yidhahdeen in laga gaabsado tirada nebiyada fiican, oo aan cadad go'an lagu sheegin, ee la yidhahdo nebiyadu ilaahay soo diroo dhan waa rumaynayaa, laakiin tiro mucayana oo aan anigu markaa xadidayaa ma jiro, tiro gaaraan ku sheegayaa ma jiro. badanka culammadu waxay sameeyaan tawaqufka iyo ka gaabsigaasay sameeyaan. waxayna ku xidhan tahay sixada xadiiskay ku xidhan tahay. in habata hada alxadiisu qulnaa bih, hadduu xadiiskaasi sugnaado ibnu xibbaan waa ku tegaynaa, waana ictiqaadinaynaa, saasaan u aqbalaynaa. nebiga hadday ka sugan tahay calayhi salaatu wassalaam, hadday ka sugnaato waa in markaa waxaa la raacaa, wa ilaa waa in laga gaabsadaa. masale ictiqaadiya in lagu dhiso xadiis daciifa markaa in lagu dhisa maaha. oo axkaamta camaligaa baa xadiiska daciifkaa in loo deliishadaa aynay sax ahayne see loogu deliishan karaa caqiido. ilaahay wuxuu inoo sheegayaa rasuulla inuu soo diray. nebi maxamedna sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa nebigii iyo rasuulkii rasuullada iyo nebiyadaba ugu dembeeye lagu khatimay. walaakin rasuula allahi wa khaatama annebiyiin. rasuulladii markaa waa ka horreeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. nebiyadii iyo rasuulladu dhammaantood nebi maxamed waa ka horreeyeen calayhi salaatu wassalaam. oo nebi maxamed ka hor baa la soo diray dhammaan rasuullada iyo nebiyada. xataa nebi ciise oo dib ka soo degi doonaa, dee risaaladiisu waa ka horraysay risaaladda nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. marka laa nebiya bacdii waxaa loo jeedaa nebi iga dambeeyoo dabaday la soo dirayo hore nebi aanu ahayni ma jiro. amaa nubuwada nebi ciise waa ka horraysay nubuwada nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam. wa cala annabiyiina jamiican. ilaahay wuxuu inoo sheegayaa rasuullada waxaa ka mida qaar aanu kaaga warranno kaaga qisoonnay, iyo qaar aanaan kaaga warramin. labada noocba waa ka mid. qur'aanka waxaa lagaga warramay 25 nebi baa laga warramay oo laynoogu sheegay magacyadooda. axaadiista nebigana sala allahu aleyh wasalam nebiyo aan badnayn oo lagu sheegay waa jiraan, oo qaliil jiddan ah, aad u yar oo ka dheeraada qur'aanka inta laynoogu sheegay, sida nebi yuushac. laakiin waxa badan rasuullada iyo nebiyada intaa laynooga qisoon baa badan. waxau ilaahay inoo sheegayaa rasuul kastaaba aayad mucjiza ah inaanu iskii ula iman karin, ee markuu aayad la imanayo calaamad mucjizaa uu keenaayo idan ilaahay buu kula yimaadaa. wamaa kaana lirasuulin an ya'tiya biaayatin ila biidni illaah. waayo rasuulladu waa addoommo ilaahay, awood sii daysan ma laho, iyagu iskoodu lama iman karan aayaadka. aayaadkana ilaahay baa haya. qul innama alaayaatu cinda allah. aayaadku allah agtiisoo keliyay ahaadeen. calaamad mucjizaa iskalama iman karo iyadaanu ilaahay u idmin. rasuulku iskalama iman karo, iskama keeni karo. waxaa taa markaa lagu burinayaa hadalka gaaladu ay leeyihiin, buurta safo waxaad nooga dhigtaa dab, ama buuraha naga fogeeyo maka naga durki buuraha, oo webiyo nooga dilaaci, oo aanu beero ku beeranno. ashyaada iyo waxyaalaha la midkay ka codsanayaan ayaa markaa lagu burinaya. waayo gaaladii waxay odhanayaan haddaad rasuul tahay, bal waxaan la kaalayo waxaan la kaalayo waxaan la kaalay, haddii kale ku rumayn mayno. wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca aw takuuna laka jannatun min nakhiilin wacinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqita alsamaa'a kama zacamta calayna kisafan aw ta'tiya billahi waalmalaa'ikati qabiila aw yakuuna laka baytun min zukhrufin aw tarqaa fi alsamaa'i walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'uh qul subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula. imise codsi bay soo dhigeen ya ilaa dhulka marka waxa ila nooga dilaaciso oo durdurro nooga dilaaciso ku rumayn mayno.
ilaa beer cinaba iyo timiri ay ku sugnaadaan oo webiyaduna weliba ay durdurradu ay dhex marayaan oo aad dillaaciso durdurrada dhexdeeda dillaaciso ku rumayn mayno ilaa aad samada markaa jeex soo riddo yaa ku rumayn mayno aw ta'tiya billaahi waalmalaa'ikati qabiila waa tacanut yani cinaad iyo madaxadayg iyo jikaar bay waxaan u leeyihiin iimaandoon kama aha allah wuxuu ku yidhi waxaad ugu jawaabtaa qul subxaana rabbii hal kuntu ilaa basharan rasuula qudradayda iyo taaqadayda kuma jirto ashyaadani ya ma ihi anigu mooyaane aadami rasuula mooyee shay kale ma ihi bes waxaan ahay aadami rasuul ah addoon ilaahay baan ahay rasuulu soo dirayna waa ahay dee rasuulku inuu ashyaadan awood u leeyaho waxyaalaha awoodaa kama mid aha markaa shaqooyinkiis iyo sifaadkiisa kama mid aha wamaa kaana lirasuulin an ya'tiya biaayatin ila biidni illaah aayaadka markuu ilaahay doono ayuu soo diraya markuu doonana ma soo dirayo marka amarka ilahay yimaado waxaa loo jeedaa qiyaamadaa loo jeedaa ataa amrullahi fala tastacjiluuh amrullah waxaa looga jeeda qiyaamada halkanna waa saas oo kale faida jaaa amrullah waa qiyaamadii qudiya bilxaq wa khasira hunaalika almubtiluun yacni goobtaas waxa khasaaraya oo khasaarahoodu caddaanaya kuwa baatilka u saaxiibka ee baatilnimadaa ku soo dhintay ma markaasunbay khasaarayaan may horay u khasaareen oo adduunyadii bay ku soo khasaareen markay gaalnimo iyo xumaansho iyo baatil ay ku dhinteen markaasay khasaareen laakiin markan maxaa loogu qayday haddaa markan khasaarahoodii baa u muuqday u daahiray ya natiijadii bay heleen allah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa ilaahay baan ku dhaartay xaqiiqe ee waa dirnay rusulan rasuulla ayaanu dirnay min qablika adiga hortaa ayaanu soo dirnay ama rasuulladaasoo min qablika adiga hortaa ahaaday minhum rasuulladaa waxaa ka mid ahaaday man qasasnaa calayka midaannu kaaga qisoonno kaaga warrannaa ka mid ah wa minhum waxaa ka mid ah rasuullada man lam naqsus calayk midaanaan kaaga qisoonoo kaaga warmin baa ka mid ah wamaa kaana lirasuulin uma suuragal ah rasuul an ya'tiya biaayatin inuu aayad la yimaadaa uma suuragal aha xaal axwaasha ka mida ilaa biidni illaah xaaluu ku lamaanyaho oo ku dheehan yahay mooyaane amarka ilaahay idanka ilaahay xaaluu ku dheehan yahay mooye oo oggolaanshaha allah u oggolaaday xaalay markaa taasi wehelisa mooye xaal kale inuu la yimaadaa uma suuragal aha maa saxa wama istaqaam wax dhici kara ma idan ilaahay iyo oggolaansho ilaahay unbuu kula iman karaa haddii kale lama iman karo fa idaa jaa'a markuu yimaado waa iman doonaaye waa laazim alwuquuc idaada shartiyada ah shayga lagu xidhaa waa shay ilaaba ilaa dhacaya fa idaa jaa'a markuu yimaado waa iman doonaaye amrullaahi ilaahay amarkiisa oo qiyaamada ahi oo bacsiga ahi qudiya waa la xukumayaa khalaa'iqda dhexdooda bilxaqi xaq baa lagu kala xukumaya wa khasira waxa khasaaro khasaarahoodu caddaaday hunaalika culamada qaar waxay u fasirayaan inay zamaan tahay hunaalika marka hore waxaa loo isticmaalaa daraf makaaniya loo isticmaalaa laakiin waxa la yidhi hadda zamaan baa looga jeedaa oo waxaa laga tilmaamaya wa khasira waa khasaaro khasaarahoodii baa muuqday hunaalika goortaas almubtiluuna kuwii baatilka u saaxiibkaabaa khasaarahoodii markaa muuqday oo daahiray yani way khasaareen waxaa loo jeedaa khasaarahoodii baa markaa muuqday oo iyagu markii hore may garanaya inay khasaarayaan ee khasaarihii maalintaasu u muuqday khusraankoodii baa muuqdaa loo jeeda horey u khasaareen culamada qaarna waxay yidhaahdeen sideedii in lagu daayo oo darafkii makaaniga loo daayo waxba dhibi kuma sugnaa baahi keensanaysa in ilaaba ilaa markaa darfu zamaan loo fasiraana meesha ma taallo marka waxay noqonaysaa wakhasira waxa khasaaro khasaarihiisii muuqday hunaalika goobtaas meeshaa la joogo wuxuu ku muuqday khasaarihiisu almubtiluuna kuwii baatilka u saaxiibka allahu ilaahay aladii kii weeye jacala lakum idinka idin yeelay alancaama ama jacala abuuray lakum idinka idin abuuray alancaama nicmoolayda xoolaha idin abuuray adhigiyo geel iyo lo'da ama alancaama lagu fasiro in loo jeedo geela keliya wuxuu idinku abuuray markaa nicmoolayda litarkabuu minha wax ka mida si aa u fuushaan in la cammimaa fiican oo alancaama la yidhahdo adhigiyo geel iyo lo'doo dhan baa loo jeedaa litarkabuu minha si aa u fuushaan wax ka mida wa minha ta'kuluun wax ka midana si aa u cuntaan walakum waxaa idiin sugnaatay fiiha nicmoolayda gudaheeda xaalay ku sugantahay manaaficday sifo ka ahaydoo waa laga soo hormariyo waa laga xaalaynaya xaal manaaficdu kaa'inatan fiihaa ay ku dhex sugnayd nicmoolayda waxaa idiin sugnaaday manaaficu wax tarro walitabluguu wuxuu kaloo idinku abuuray litarkabuu bay ku cadfan tahaye walitabluguu iyo si aa ugu gaadhaan calayha korkeeda xaajatan dan aa ugu gaadhaan dantaasoo fii suduurikum laabihiinna ku sugan fii suduurikum waxaa laga sifaynayaa waxay sifo ka tahay xaajatan dantaasoo kaa'inatan fii suduurikum laabihiinna ku sugan
marka kaa'inatan waxay sifo ka tahay xaajatan jaarkiiyo majruurkuna kaa'inatan taa sifada ah bay ku tacalluqaysa wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun wa calayha nicmoolaydaa korkeediiyo wa cala alfulki doonyaha korkooda tuxmaluuna laydinku qaadaya laydinku xambaaraya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu inoo abuuray xoolaha nool inuu inoo abuuray inuu ku intifaacayno manaafic fara badanna inoogu sugan tahay inaynu ku intifaacnaana loo abuuray mar gaadiid baynu ka dhiganaynaa oo rakuub baynu ka dhiganaynaa mar waa qalanaynaa waa ku intifaacaynaa waa cunaynaa mar manaafic kalaynu ka helaynaa oo waa maalaynaa mar manaafic kalaynu ka helaynaa oo dhogorteedaynu ku intifaacaynaa mar hargahoodaynu ku intifaacaynaa marka nafciyo badan baa inoogu jira qaarkood gaadiid baynu ka dhiganaynaa mar rakuub baynu ka dhiganaynaa marna waxa weeye waxbaynu ku raranaynaa inaynu alaabada ku qaadanno inaynu marka waxa weeye dhaansanno inaynu alaabada ku raranno yani ayaynu markaa samaynaynaa walitabluguu calayha xaajatan fii suduurikum wa calayha wa cala alfulki tuxmaluun walitabluguu calayha xaajatan fii suduurikum yani safaradii iyo meelihii fogaa ayaa inta alaabooyinkii lagu qaato lagu gaadhaya rakuub baa laga dhiganayaa mar iyagii baa la korayaaba marka geela iyo doonyahaba waa gaadiid marka waxa weeye laynagu qaaday weeye ilaahay baa inoo sakhiray waa koraynaa marka waxa geeli rakuub baynu ka dhiganaynaa marna waxbaynu ku raranaynaa oo doonyaha maxaa loo keenay ile nicmooley baa laga warramayey munaasabada ka dhaxayso oo marka waxa mid walba markaa in rakuub laga dhiganayo la korayo ayaa loo keenay marka horena way isshabbahaan bay yidhahdeen culammaduyo waxaa la yidhahdaa geelu waa safaa'inu lberri waasarabu bixaaruha waa doonyihii berriga sow doonyaha iyo maraakiibtu marka waxa weeye doonyihii iyo maraakiibtii badda ma aha doonyihii iyo maraakiibtii berriguna waxay noqonayaan geelay noqonayaan oo doonye waxay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin biyahoodii mee ya waasarabu bixaaruha bay yidhahdeen bacdi baa saa yidhi dhalanteedada markaa bada uga dhigan manaafic waaweyn baa ku jirta weliba geelu isagoo xoog badan baa ilaahay inoo sakhiray markaasaa ilmo yar ayaa awrkii weynaaye xoogga badnaa ayaa isagoo markaa waxa ama raran ama isagoo dhaansan oo dhaankii sida ayuu hoggaaminayaa meeshuu doono markaa waxa qabadsiinaya markuu doonana tu'inaya ya markaasuu mar xidhaya oo mar furaya oo mar kaxaynaya ilaahay baa inoo sakhiray taskhiir min allah hadduu markaa awrku isa soo taago oo markaa waxa weeye uu doono inaanu yeelinna dee waxa weeye markaa nin iyo laba toonna ma qaban karo nin iyo laba toonna uma taag helayaan ilahay baa inoo sakhiray allahu ilaahay alladii kii weeye jacala lakum idinka idin abuuray alancaama nicmoolayda idin abuuray jacala bimacnaa khalaqa adhigii iyo geel iyo lo'da ancaam la yidhahdaa wuxuu u abuuray litarkabuu kortaan minhaa wax ka mida markaa waxa weye nicmoolayda adhigi iyo geel iyo lo'da ka mida inaad kortaan oo rakuub ka dhigataan daraaddeed buu abuuray wa minhaa ta'kuluun marka minta tabciid baa loo jeedaa waayo nicmoolaydii lama wada koro haddii nicmoolaydii markaa laga dhigo caam oo adhigi iyo geel iyo lo'dii intaba lagu camimo dee qaar baan rakuubba noqonayn ee geelunbay markaa noqonayaan kuwa rakuubaday wa minhaa ta'kuluun wax ka midana waa cuntaan tabciid in lagu fasiraa labadaba fiican walakum waxaa idiin sugnaaday fiiha xaalay nicmoolayda ku sugan tahay manaaficda soo socotaa manaaficu wax tarraa idiin sugnaaday hadday tahay in la maalo hadday tahay dhogorteeda in lagu intifaaco hadday tahay hargeheeda in lagu intifaaco hadday tahay markaa in beerihii lagu fasho lo'dii kullu daalika waa soo geliya walitabluguu wuxuu kaloo idinku abuuray nicmoolayda walitabluguu iyo si a ugu gaadhaan litarkabuu minha walitabluguu iyo si a ugu gaadhaan calayha korkeeda xaajatan dan a ugu gaadhaan dantaasoo fii suduurikum laabihiinna ku sugan wa calayha korkeediiyo wa cala alfulki doonyaha korkooda tuxmaluuna laydinku qaadayaa wa yuriikum aayaatihi wuxuu idin tusayaa ilaahay aayadihiisa fa aya aayaati illaahi tunkiruun aayadaha ilaahay teebaa tunkiruuna dafiraysaan oo beeninaysaan afalam yasiruu fi lard miyaynan soconin arlada korkeeda fayanduruu dabeedna aynay eegin kayfa kaana sidee buu ahaaday caaqibatu aladiina kuwii cidhib dembeedkoodu min qablihim iyagoo hortooda ahaaday siday ahaatay ku waxay ku dambaysay halaak iyo baaba kaanuu waxay ahayn akara qaar ka badan bay ahaayeen minhum iyaga ka badan xagga tiro ahaan wa ashadda qaar ka daran bay ahaayeen quwatan xagga xoogga qaar ka awood badan bay ahaayeen wa aathaaran xagga raadadkana qaar ka daran bay ahaayeen fil ardi raadadkaasoo kaa'inatan fil ardi arlada ku sugan famaa aghnaa canhum iyaga xaggooda waxba kama tarin ama famaa aghnaa canhum maxay ka tartay xaggoodii waxba kama tarine istifhaam bimacna nafyi ama maadaama naafiye laga dhigo maa kaanuu yaksibuun ay kasabhum kasabkoodii muxuu ka tara waxba kama tarin oo maada masderiye la yidhaahdo ama leha waa mawsuula
alladii kaanuu yaksibuunah kay ahaayeen qaar shaqaysta oo kasbada maxay ka tartay waxba kama tarini falammaa jaa'athum markay u timi rusuluhum rasuulladoodu bilbayinaati daliiladii cadcaddaa ay ula yimaadeen iyo xujooyinkii cadcaddaa ee rasuulnimada caddaynaysay mucjizaadkii markay ula yimaadeen farixuu waa farxeen ummadihii gaalada ahaa bimaa cindahum waxay ku farxeen wixii agtooda ku sugnaaday oo min alcilmi cilmi ah ayay ku farxeen iyagaa iscajabiyey markaasay rasuulladu miyay cilmigan garanayaan cilmi cadiima weyn baanu haysannaa bay yidhahdeen waxaaqa bihim waxaa ku soo degay iyaga maa kaanuu bihi yastahzi'uun waxay ahaayeen qaar ku dheeldheela oo cadaabkii ah bay ku soo degay ay ku dheelleelayeen cadaabkii u ahaa marka cadaabka loo sheegay ku dheelleelayeen kay ku dheelleelayeenoo cadaabkii baa ku soo degay falammaa ra'aw ba'sanaa markay arkeen cadaabkayagii iyo dhibtayadii markay arkeen qaaluu waxay yidhahdeen aamannaa billaahi waxaanu rumaynay ilaahay waxdahu xaaluu allah keligii yahaan rumaynay wa kafarnaa waxaanu ka kufrin oo ka gaalownay bimaa kunnaa bihi mushrikiin kaannu ahayn qaar ilaahay la wadaajiya oo ilaahay ugu shariig yeela waxalle waxaannu ilaahay la caabudi jirro oo la wadaajin jirray waa ka gaalownay yidhaahdeen cibaadadoodii baannu ka kufrin oo ka gaalownay falam yaku yanfacuhum ma ahaanin qaar uu anfacayey iimaanuhum iimaankoodu qaar uu anfacayey may noqon qaaruu iimaankoodu anfacayey may noqon falam yaku may ahayn yanfacuhum qaar uu anfacayey oo wax tarayay iimaanuhum iimaankoodu lammaa ra'aw ba'sanaa markay arkeen cadaabkayagii iimaankoodu waxba ma tarayno ma anfacayn waa iimaanu idiraar waa dani ku khasabtay iimaan ah sunnata allaahi alatii qad khalat fii cibaadih ay sanna allaahu sunnatan ilaahay sunnuu jideeyey sunnadiisuu jideeyey allatii taasoo qad khalat ama ixdaruu ka digtoonaada sunnata allaahi sunnada ilaahay ka digtoonaada iyo waddadii ilaahay allatii taasoo qad khalat tagtay fii cibaadihi addoommadiisii ku socotay bimacnaa sunnadii ilaahay iyo waddadii ilaahay ee uu markaa dadka gaalada ah uu ilaahay ciqaabi jiray cadaab uu markaa ku cammimi jiray ayaa markaa ku socotay oo sidiibaa markaa loo cadaabay sunnadii ilaahay oo inuu ilaahay cadaabo ah gaalada ayaa ku socotay wa khasira waxaa khasaaray hunaalika goortaas waxa khasaaray ama hunaalika goobtaas waxa ku khasaaray oo khasaarihiisii ku muuqday alkaafiruuna gaalada ilahay wuxuu inoo sheegayaa aayaadkiisa inuu markaa tusinayo dadka oo dalaa'isha tawxiidkiisa caddaynaya iyo aayaadkiisa inuu tusinayo marka aayaadka ilahay teebaa beeninaysa bimacnaa wax la beeniye maaha waa shay waadix oo cad indha iska tur in la sameeyo maaha markaasuu ilahay wuxuu inoo sheegaya ummadihii hore inuu waxa weeye markaa ee beeniyey inuu ilaahay markaa halaagay ayuu inoo sheegay markaasuu ilaahay wuxuu yidhi afalam yasiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim yacni kuwa hore maxay ugu cibro qaadan waayeen kuwa hore weliba kamay itaal yarayn way ka fara badnaayeen way ka xoog badnaayeen waa ka aqoon badnaayeen ya arlada way uga raadayn badnaayeen raadaynta waxaa loo jeedaa yacni arlada siday u camireen oo u dhiseen maxaa dhismayaala maxaa buura ah maxaa marka biyo xidheenna maxaa gurye ah maxaa derbiye ah yacni waxa weeye raadadkay arlada kaga tageen baa calaamad ah wax alla waxay ka tareen aqoontoodaas iyo xooggoodaas iyo xoolahoodaasi waxay ka tartay ma jirto famaa aghnaa canhum maa kaanuu yaksibuun markay rasuulladu u yimaadeen oo weliba ay ula yimaadeen mucjizaad iyo adilla cadcad ay ula yimaadeen waa beeniyeen waxayna ku farxeen waxay haystaan oo cilmi ah caqiidooyinkii baatilka ahaa iyo shubhooyinkoodii iyo falsafadihii ay yaqaaneen iyo aqoontii maadiga ay yaqaaneen iyo caqaa'idda baatilka ay haystaan waxaasay waxay ku tiriyeen aqoon aad u weyn inay tahay markaasay rasuulladu miyay garanayaan ya wixii agtooda ahaado shubah ah yacni marka ayay ku farxeen culamada qaar waxay yidhahdeen farixuu bimaa cindahum min alcilmi waxay yidhaahdeen waxay ku farxeen bimaa cindahum wixii agtooda ahaado maal iyo xoola ah min alcilmi ay badel alcilmi oo minta waxay ka dhigeen bedeliye waa qowl labaad qowl saddexaad culamada qaarkood waxay farixuu bimaa cindahum min alcilmi waxay ku farxeen gaaladii bimaa cindahum ay bimaa cinda arusul wixii rasuullada agtooda ahaado min alcilmi cilmi abay ku farxeen waa cala sabiil istihzaa wa sukhriya inay ku jeesjeesayaan alla maxay aqoon leeyihiin alla maxay cilmi leeyihiin bay leeyihin ya laakiin jees bay uga jeedaan saddexdaa weji marka lagu socdo farixuu waawu damiirku wuxuu noqonayaa gaalada weji afraad culamada qaarkood waxay farixuu rasuulladu waa farxeen bimaa cindahum min alcilm wixii agtooda ku sugnaadoo cilmi ay ku farxeen shukrinaqa ilahay ugu shukrinaqayaan bay rasuulladu ugu farxeen dadkana jahli ay ku sugan yihiinoo ay beeniyeen ayay rasuulladii waxay ku farxeen cilmiga ay hayaan shukri ilahay ay ugu shukrinaqayaan bay ugu farxeen marka la yaha farixuu waawu damiirku wuxuu u noqonayaa rasuullada sidaana culamada qaarkood ayaa maray calaa kulli xaal laakiin wejiga ugu fiicani waa wejiga hore oo in laga tilmaamayo caqaa'idda baatilka iyo waxyaalaha markaa aqoonaha ay sheeganayaan
inay markaa ku farxayaan oo taa isku waaweynaynayaan wejigaasaa marka arjaxo fiican marka waxaa ku soo degay waxay ku dheeldheelayeenoo cadaabkii ah culamada qaar waxay leeyihiin maa kaanuu bihi yastahzi'uun ay jazaa'u maa kaanuu waxay ahaayeen qaar ku dheeldheela abaalmarintiisaa ku soo degtay oo jazaa la qadaro laakiin waxaa ka fiican inaan la qadarin waayo waxay ku dheeldheelayeen waxaa loo jeeday cadaabka laftiisa cadaabkay ku dheeldheelayeen laftiisaana ku soo degey marka rasuullada inay ku dheeldheelayeen iyo aayaadka inay ku dheeldheelayeen oo dabeedna abaalmarinteedii ku soo degtay dheeldheelkoodaas waxaa ka fiican in la yaha kay ku dheeldheelayeenoo cadaabka ahaabaa ku soo degey markay cadaabkii arkeen bay waxay la yimaan iimaan idiraari ah oo dani ku khasabtay ah oo yidhahdeen aamanna billaahi waxdah ilaahay keligii baan rumaynay shirkigiina waa ka kufrinay dee iimaankaasi laakiin iimaan naafica ma aha waayo iimaanka wax anfacaya waa maxay waa iimaanka ikhtiyaariga ah iimaanka idiraariga dani ku khasabtay ah kaas ma aha kaas waxba anfici maayo saas aawadeed fircawn markii cadaabka ku dhacay dee wuxuu yidhi markaa waxa weye waa rumeeyey buuhi haddana waxa uma tarin xatى إida adrakahu اlgarqu qaala aamantu anahu laa ilaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin yacni markii cadaabku ku dhaco qaraqu haleelay ayuu wuxuu yidhi waa rumeeyey muslim baanan ahay maxaa lagu yidhi al'aana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma haddaad rumaynaysa ya adoo cisyaankii hore uga sugnaa marka wakhtigan waxaa anfici maayo ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir yani naftu markay dhuunta soo gaadho toobaddu maqbuula noqon mayso allah wuxuu yidhi wa yuriikum waa idin tusayaa ilaahay aayaatii aayadihiisa fa aya aayaati illaahi aayadaha ilaahay teebaa tunkiruuna dafiraysaan oo beeninaysaan afalam yasiruu fi lard miyaynay soconin arlada fayanduruu dabeed aynay eegin intay socdaan aynay eegin kayfa kaana sidee buu ahaaday caaqibatu aladiina kuwii cidhib dambeedkoodu min qablihim iyaga hortood ahaaday xaggay ku dambaysa ya alcaaqilu man itacada bigayrih kaanuu waxay ahaayeen akara minhum qaar ka badan bay ahaayeen xagga tiro ahaan wa ashadda qaar ka daran bay ahaayeen quwatan xagga xoogga wa aahaaran iyo xagga raadadka qaar ka daran bay ahaayeen aahaartaasoo fil ardi arlada ku sugan aahaartana waxaa loo jeeda arlada siday u camireen u dhiseen maxaa biyo xidheenna maxaa dhismayaala maxaa gurye ah maxaa buura ah maxaa derbiye ah calaamaadkay arlada kaga tageen famaa aghnaa canhum xaggooda kama tarinoo waxba kama anficin maa kaanuu yaksibuun ay kasabuhum kasabkoodu waxba kama tarin oo waxba kama anficin ama alladii kaanuu yaksibuun ay alladii kaanuu yaksibuuna kay ahaayeen qaar shaqaystoo kasbada hadday aqoon tahay iyo hadday maal tahay iyo hadday wax kale tahay wax alla waxay u tartay ma jirto falammaa jaa'athum markay u timi rusuluhum rasuulladoodu bilbayinaati daliiladii cadcaddaa ay ula yimaadeen iyo mucjizaadkii bilbayinaati daliiladii cadcaddaa ay ula yimaadeen iyo mucjizaadkii farixuu way farxeen ummadihii gaalada ahaa maxay ku farxeen bimaa cindahum ay biladii kii istaqara cindahum iyaga agtooda ku sugnaaday ku farxeen oo min alcilmi cilmi ah ayay ku farxeen markaasay yahay maxaa falsafadaanu naqaano iyo cilmigaanu naqaano iyo aqoontaanu naqaano miyay rasuulladu garanayaan ya kuwa rasuullada sheeganaya miyay garanayaan iyagii ba iscajabiyey ya maanta dadka qaarkood ba waxay leeyihiin yani waxa weeye qur'aanka iyo sunnadu waa adila lafdiya oo yaqiin ma faa'iideynayso ya adilada caqliga abaa yaqiin faa'iideynaya markaasay waxay yidhahen idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu caqliga iyo naqligu hadduu iscaaridaan caqligaa la hormarinaya kulaha baatil wey waxaas ya waajibku wuxuu yahay in naqliga iyo sharciga loo hoggaansamaa waajibku yahay caqliguna waxa weeye waa gefaya waana asiibaya in la yidhahdo waxa weeye marka qur'aanka iyo sunnadu waa adilo lafdi oo yaqiin ma faa'iideynayso ee dhanni unbay faa'iideynaysaa baatil weey sax ma ah waxaaqa bihim waxa soo degey ama waxaaqa bihim waxa koobaabay maa kaanuu bihi yastahzi'uun waxay ahaayeen qaar ku dheelleela oo cadaabkiibaa koobaabay ama ku soo degey falammaa ra'aw markay arkeen ba'sanaa cadaabka yagii ay arkeen qaaluu waxay yidhahdeen aamanna billaahi waanu rumaynay ilaahay waxdahu xaaluu allah keligii yahaanu rumaynay waanu cibaadada u keliyaynayno keligii caabudayno ilaahnimada xaqa ah iyo rabbinimada xaqa keligii u sugnaadeen wa kafarnaa waxaanu ka kufrinay oo ka gaalownay bima kunna bihi mushrikiin waxaanu ilaahay ugu sharig yeeli jiray la wadaajin jiray waa ka kufrinay yidhaahdeen falam yakun may ahayn yanfachuhum qaar uu anfacayo iimaanuhum iimaankoodu lammaa ra'w ba'sanaa markay cadaabka yaga arkeen iimaankay rumeeyaan iimaan idiraar iyo danay ku khasabtaya wuxuu u taray ma jirin sunnat allahi ay ixdaruu sunnat allahi sunnada ilahay ka digtoonaada iyo waddadii ilaahay kula macaamilay ummadihii hore gaaloobay sunnat allahi ama sana allahu sunnatan ilahay sunnuu jideeyey sana allahu sunnatah ilahay wuxuu sunneeyey sunnadiisii allatii taasoo qad khaladtay fii cibaadihi addoommadiisa dhexdooda ku tagtay bimacnaa ummadihii gaalada ahaa inuu ilaahay rogi jiro o cadaabi jiray
sunnadaasuu ilaahay jideeyey wa khasira waxa khasaaray oo khasaarihiisii muuqday hunaalika goortaas waxa khasaaro khasaarihiisii muuqday oo daahiray alkaafiruuna gaalada fadli gaar oo suuradda ku soo arooray ma jirto ama xadiiska markaysaga qaarkood ay qorayaan ruuxa markaa suuraddan akhriya khaafir ama suuratulmu'min akhriya fadliga noocayo noocaasuu helayaa ma asixin waa mawduuc waa been abuur xadiiska caynkaasi qur'aankao dhanna in la yidhahdo suurad kastaba fadiilo gaaraa loo sheegayaa oo markaa waxa weeye gaarnimo ugu soo aroortay mid sugan ma aha axaadiista sidaa ku soo aroortay haalibkeedu waa mawduuc inta markaa waxa weeye suuradaha ee fadliga gaarka ku sugnaaday ee ku asaxay waa kooban yihiin waxaana ka mida qul huwallaha ka mida faatixada ka mida mucawidataynka ka mida suuratulbaqara ka mida aalu cimraan baa ka mida sabca tuwal baa ka mida kahfi baa ka mida yacni suwarka ayaa ka mida marka suurado kooban bay u soo aroortay fadiilo khaasi oo ay sugnaatay laakiin suurad kastaba oo aan midnaba la dhaafayn fadaa'isha loo sheegayaa mid sugan ma aha waa axaadiis mawduuco la dejiyey haalibkoodu marka ayaan lagu kadsoomin halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk